qisadani waa qiso aad iyo aad u xanuun badan cajaa'ibteedana wadata waxaana ciwaankeedu yahay naag jinni ah ayaa jeclaatay. haddaba saaxiibayaal, halkani waa qiso iyo qalin. waxaan ku soo gudbiyaa sheekooyinka, qisooyinka iyo xikmadaha. haddaba muuqaalka leeg dheh, channelkana subscribe noo dheh si aan meel fiican u gaarno. aan galno sheekadeenna. waxay ahayd subax jawigu aad u deganaa, cimiladuna ahayd mid roob. waxaa cirka saarnaa daruuro waaweyn, dhibicda roobkuna si tiix ah ayay u da'aysay. waxaan soo aaday shaqadaydii maalinlaha ahayd goor subax hore ah. markii aan goobta shaqada u soo dhowahay ayaan mar qura waxaan meel iiga yeedhay gabar aad iyo aad u qurux badan oo malaha aan is idhi waa xurucayntii jannada oo adduunka la keenay saaka. ilaahay ayaa xumaan ka nasahane inta indhaha tirtiray ayaan is idhi mariya ah mise waa run. haddaan isha ku sii xoojiyana mukawdu waa qof dumar ah oo dhoolla caddaynaysa. anigoo dhan waxaan dareemay jirirooco korkayga ku jajabtay. waan u soo yaro dhowaaday. haddii aan tilmaamo waa qof aan dheerayn haddana aan gaabnayn. quruxda waxaan is idhi ma nabi yuusuf tii la siiyey ayaa la siiyey. sanka iyo sunniyaha markaan eegay anoo la dhaygagsan ayaan eegay bishimaha iyo ilkaha. afku waa ashqaraar. waxaan waayey inantii wax aan ku cabbiro oo aan ku sifeeyo. waxaan idhi walaalo, xaggeed ku nooshahay? waxay igu tidhi agagaarkan kama fogi. waxaan idhi maxaad iigu wacday kollay danbaad iga lahayde. waxay tidhi waxaan kuugu wacay inaan ku ogeysiiyo inaan kaa helay oo weliba si dhab ah aan kuu jeclaaday. mar qura ayaan wada qaboobay. inanta ilaah waan kaa helay. dumar intaan arkayay xitaa weligay ayadoo kale ma hor istaagin. aragtidii koowaad ayayba qalbiga la deristay. waxaan idhi anigoo qajilaya sida aan u aallo iyo gabadhu siday u taallo anoo la yaaban ayaan idhi waan ku soo dhowaynayaa, laakiin meel lagaala xiriiro ii sheeg. waxay tidhi may, telefoon la iima oggola, laakiin aniga ayaa mar kasta ku hor imaan doona. runtii aad iyo aad ayaan ugu farxay hadalkeeda. waxaana idhi aniguna ballankeenna waan adkay doonaa. halkaas ayaan isku macsalaamaynay maalintaas, laakiin aniga waxa i raacay dareen aan la soo koobi karin. waxaanba iskaga fikirayaa gabadhii maankayga iyo maskaxdayda waxaa buuxshay dareenkii aragtida ka dhashay ee sida kediska ah ii galay. maalinkii oo dhan maaqan sidan shaqadaydii u qabtay. habeenkii markaan xaafadda tegey waxaan bilaabay inaan iska suuraysto inantii quruxda badneed anoo calaf ii galay oo laabteeda ku jiifa. waxa aan riyo ku jiraba waagii ayaa ii baryey. salaadda subax kadib durba inta qabaystay oo dharkaygii kuwii ugu roonaa isku boobsiiyey ayaan soo baxay anoo qalbiga ku haya inantii xitaa magaceeda aan hilmaamay inaan weyddiiyo ee aan xalan ah ka jiifan waayey muuqeeda. waxaan socodka boobaba halkii markaan marayo ayaan dhinacyada jeedaaliyey. mar qura ayay indhahaygu qabteen qurayshtii xalay jiifka ii diidday. waxaana u soo orday sidii cunug dhallaan ah oo hooyadii u jeeday. eegmada ayaad ku qancaysaa, eegma mooyee warba uma hollado. waxaanba rabaa inay ayadu hadasho aniguna aan iska eegto. mar waxaan is idhaa yaa sida qardhaastii qoorta kuugu xidha. marna waxaan is idhaa haddaad weyso gabadhan siday rajadaadu noqon doontaa. maalintaas magaceeda ayaan weyddiiyey. waxayna ii sheegtay in la yidhaah ramlo. farxadda wejigeeda ka muuqata waxay nuurisay wejigayga oo murugo badan dabooshay. waxaan ku wada hadalnay hadal yar oo aan badnayn balse xigmado badan ku jiraan. waxaad u malaysaa gabadha hadalkaba in laga baray inta danta ah, waayo ku tiraabi mayso wax aan xigmad ahayn. maalaayacniba ma leh. hadalkeedu waa saafi dhaladoo qurux loo dhammaystiray. subaxdaas labaadna sidii ayaan isku macsalaamaynay. shaqadii ayaan iska aaday. sidii caadada ahaydba waxaa igu soo maaxanaya hadalkeedii wacnaa iyo qaabkii loo sameeyey inanta. sunniyaha biciidka ah, sanka shuban iyo wejiga halalacnuuraaya, bishimaha dhuxusha ah, ilkaheeda wada siman, dhexda taakada ah iyo qaarkeeda kala dhigan, jooggeeda dheer iyo dhabankeeda dheeha leh, iyo intaas oo tilmaan ah oo u kulantay inantaas. xaasha lilaahiye waan qalbiyey qurayshtaas. waxaana go'aansaday inaan naf iyo maalba iskugu geeyo oo aysan iga baxsan qalbigayga qaadatay. ilaan jacaylka waan u nuglaaye durbo waxaan noqday ruux qalfoofahoo jidhka mooyee qalbigii ka dhoofay. qalbigu wuxuu la cawaynayaa maalintiina la qaxweeyaa boqoraddii subaxa qura indhuhu jeedaaliyeen ee nafta jiidatay. subaxdii saddexaad inantii meesha waa ka waaye oo sooma istaagin. maalintaas anoo liicliicaya oo hadba gees eegaya ayaan iskaga tegey. waxaana i cajab geliyey inantu ima siin imana sheegin meel aan kala soo xidhiidho. hadalkeeda waxay ku sii xoojisay inaysan faamilkeedu u oggolaan taleefon. wuxuu wakhtigu isguro. maalintii shaqadii anoo fikiraya ayaan dhammeeyey. habeenkii anoo xaafadda u soo socda ayaan maqlay shanqar cod soo baxaya oo iigu yeeraya magacayga, weliba meel mugdi ah. codku waa cod dumar.
waxaana dareemayaa inay tahay ramlo. La soco qaybta xigta muuqaalkana leeg saar channelkana subscribe soo dhig si aan meel fiican u gaarno saaxiibayaal.